bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta wadana gala socotay idilkiinba meel kasoo joogtaan iyo si walba inoo maqashaan kuna soo dhawaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee faaqidaada ciyaaraha barnaamijku waa barnaamij aad maalmoba ka dhegaysataan warbaahinta Hagan TV marka laga reebo maalinimada jimcada ayaa qodobada xiisaha badan ee barnaamijka doornimadan aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta naadiga Gunners ee Arsenal waa ninka lagu magacaabo Cesc Fabregas gana soo jeeda wadankaas Spain ayaa gabi ahaan la sheegay inuu si toos ah ugu biiray naadiga kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo ay ciyaaryahankaasi si diiran u soo dhaweeyeen xidigaha ugu weyn naadigaasi memberkii waad ku jeclaa Cesc Fabregas ayaa dhab lagu siiyay barnaamijka aad ku maqli doontaan tababaraha naadiga Arsenal isna sidoo kale wuxuu la hadlay saxaafadan wuxuu sheegay inuu ciyaaryahanka maara u waayay una celi waayay inuu ku sii nagaadiyo naadiga Gunners ee Arsenal tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Jose Mourinho waa special one oo wacad ku maray in xilli ciyaareedkani uu wax ka bedeli doono qaab ciyaareedka oo kala hortago kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi ee naadiga kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu sheegay mar haddii Cesc Fabregas uu ku soo biiray naadiga Barcelona inay si jiraan xilligan wax ba u kabqan isagoo sheegay inay wali hoggaanka horyaalka waddanka Spain ay gacantooda ku sii jiri doonto sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan naadiga kalisan waddankaas Talyaaniga waa AC Milan oo sheegtay in xilligan ku dareynayso inay garoonka Serie A ay ka soo caga dhigto ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta FC Porto ciyaarana lagu magacaabo Juan Messi iyadoo kooxda kubadda cagta Bundesliga ay Chelsea la sheegay in xilligaanay ay daneynayso inay mar kale qandaraaska ay u sii dheerayso ciyaaryahanka weerarka ciyaara Didier Drogba Frank Lampard iyo naadiga kooxda kubadda cagta Chelsea oo la sheegay in khilaafaad soo kala dhex galay barnaamijka aad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka qodobada xiisaha badan ee aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta Indonesia oo sheegtay in ay ka cabanayso qaar ka mid ah albitriyaasha ama garsoorayaasha seeriyada waddankaas Talyaaniga iyo waliba waxaad ku maqli doontaan barnaamijka duubaha awoodda la raali ka noqdo suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada oo saddexda maalmood ee soo socota ku dhiman Arsenal oo lagu cadaadinayo tababaraheeda Arsene Wenger inuu soo caga dhigo garoonka naadiga Fly-Emirates ciyaaryahanada fara badan maadaama xilligaani Samir Nasri Cesc Fabregas iyo waliba awoodiri la luudeysay naadiga ay soo qabsadeen xilli ciyaareedkan tolow Arsenal waxay ka mid noqon doontaa Basiir Biba inuu laabta laga yaabaa mise kaalmeeda hore ayay ciyaarayso doontaa qodobadaas iyo qodobo kale aad xiiso badan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijka waxaa idin soo saaray idin la socodsiinaya anigu Maxamed Cabduqaadir Cilmi qasmada waxaa iga saacidaya saaxiibkay Cabdi Kaamil Yuusuf Maxamuud oo diyaar garooba barnaamijkaas oo buuxo golowinaan guda galno waiting for tonight.
waiting for tonight.